السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاوة ليال وحين كهضلينا قدق وقفك وأفضوي مساجدكي إلهي توفيق إسلامي سنتر. قدق وقفكنا ولا ليال وحي ككوبيه سقال حبنود oo ayash kaabka ama trusteeshipka ku qoran oo yiri annaga iskale masaajidka ilaahay. annagu walaalayaal masaajidka ilaahay waxaan u naqaanaa wa anna almasaajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahadan. Tawfiq Islamic Center wax badan ayaan ka sheekeeyay. YouTube ayaan u furtay inaan ka sheekeeyo. YouTube ayaan u furtay, Facebook ayaan u furtay, wax kale oo aan ka hadlaa ma jirto. sababtana waxa weeye membership baan ka nahay dadka Soomaaliyeed oo dhan baa ka ah. meesha tan 6 sano u dambeysay khilaaf waxa ka jiray isqabqabsi, marka ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto inaan u bayaamino ayaan go'aansanay. cid lacag nagu siisaana ma jirto. annaga YouTube keena furanay oo lacagteena ku furanay. annaga ismaal gelina anigu runtii kaarkayga viisaha oo credit cardkan ku furtay ana lacagta iska bixiya. sanad buuna ii furan yahay, hadda sanadkii labaad baa la galay. lacag iga soo gashaana ma jirto mid aan ku bixiyo mooyee. ujeedada marka aan ka leeyahay YouTube-kan aan u furtay waxa weeyaan Tawfiq Islamic Center in uu ku soo noqdo gacanta shacbiga Soomaaliyeed ee muslimka dhistay, inay noqoto meel loo wada dhan yahay. marka khilaafku waxa uu ka bilaabmay ayaynu u gelaynaa, iyo goorta uu bilaabmay, iyo goorta Tawfiq Islamic Center la aasaasay, iyo marka lagu kala tagay hadda ugu dambeysay 17 November bisha tan hadda dhamaanayso caawa 27 beri ah, 10 beri ka hor. walaalayaal Tawfiq Islamic Center waxa la aasaasay, dadku waxay yiraahdaan waxa la aasaasay 1995, laakiin sida rasmiga officialka waxa la aasaasay 1997. aniga 4 sano ka bacdi ayaan imaaday wadanka kan. waxaan imaaday 3 bishii 3aad ama March 2000 ayaan imaaday. waa muddo 19 sano ku dhow ama way buuxsantayba. inta marka aan ka warhayo iyo inta aan soo gaaray oo medlamka ka ahaa ama membershipka waxa weeyaan laga soo bilaabo 2003 waa 16 sano. Tawfiq waxa asaasay ilaa 4 jaaliyadood oo Soomaaliyeed oo la isu geeyay oo uu kulmiyay. Allah u naxariistay raxmatan waasica Sheikhuna al-Faadil Sheikh Umar Faaruq xafadahu Allah wa ra'aahu. isaga magacan waqafka ama Tawfiq in la iswaafaqay u bixiyay. maanta hadduu noolaan lahaa Sheikh Umar Faaruq xafadahu Allah wa ra'aahu maanta uu yaabi lahaa hadduu noolaan lahaa maanta. Ibrahim Dheere oo isku magacaabay inuu gudoomiye yahay oo cid dooratay aysan jirin, oo jaahil welibana waxaan u malay inuu shiica yahay ninkaasu. waa suufi baa laygu yiri qolada xadraysa 12 waana nin waalan oo majnuun ah. waa dadkii Aydiid iyo Gubadley iyo dadka qaxootiga ah ee Luuq Jeelow iyo ka soo qaxay meesha leedo Jalalaqsi iyo dadkii webiga ku guraayay way 1991 waa la yaqaanaa ninka la yiraahdo Ibrahim Dheere. wuxuu ka shaqeeyana waa naqaanaa.
halkan laa yaktub walaa yaqra in arko xataa nin u tegi kara ma aha oo xataa luqadda nooshkaha yaqaana isaga iyo khadar iyo kuwa hadda isku sheegaya inay yihiin iyo ninka la yidhaahdo cabdifataax afgaab iyo waa niman yaqaana bas sida macnihii steerinka loo wareejiyey yaqaanaan laa yaktub walaa yaqra kulluhum waxa hadda lagu leeyahy waa guddi laa yaktub walaa yaqra ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan la wadaago 2015 anuu imtixaan baan u fadhiistay masaajidka anuu guddiga waalidiinta ka mida dadkao dhan way yaqaanaan imtixaanka waxaa yacni observer ama observation waxaa ka ahaa yacni ilaalo kor joogtaa waxaa ka ahaa oo ilaalinayay faysal goox ma yaqaano imtixaanka aan gelayna iyo waxa uu ka kooban yahay fiiri waxa hadda lagu leeyahay waa guddi fiiriya ilaahay baan idinku dhaariyey yaa soo diyaariyey cali maxamed saalax iyo ninka la yidhahdo waxaa soo diyaariyey nin la yidhaahdo daraman nin joogaa soo diyaariyey waxaa dhacday ummadda soomaaliyeed imtixaankii noocaas ahaa 5 qof annagaa ku soo baxnay 5 qof waxaa la keenay 5 qof oona lagu bedelay waxaana ka mid ah axmed wiil la yidhahdo oo hadda tagsiilo ah oo sharcina waddanka aan ku lahayn waxyaabaha la yaab kale ay la mid tahay markii la weydiiyey oo la yidhi ninkii imtixaanku ku dhacay barraa imtixaanka ku dhacay intaasoo nin baa ku dhacday raggii macallimiin baa laga wada dhigay waa la shaqaaleysiiyey axmedkii yaraa oo dhacayna waxaaba la yidhiba waa mudiir madrasadu mudiirka yahay isagoo furo wareejinayaan la yaabnay waxaana war ninkan maxaa dhacay ninkan waxaa la yidhi waa sharci la-aan wuu dhacay laakiin meel uu ka beriseeyaa loo baahan yahaa la yidhi fiiriya waxaa tawfiiq waxaasaa yaala ilahi baan idinku dhaariyey aaway marka wisdomkii aaway xikmaddii aaway islaamiga ahayd marka ma jiraan meeshan waan idiin sheegay dad qabiil ah ayaa lagu masruufaa kuwa muqaaxyaha la siiye waa qabiil kuwa maktabadaha la siiye waa qabiil kuwa dukaamada la siiye oo loo sharciye waa qabiil waa la yaqaanaa waxa meeshan ka shaqeeya waynu naqaanaa marka haddaan dib oogu noqdo marka mawduucaygii tawfiiq xilligaas ayaa waxaa ku midoobay 4 jaaliyadood markaskan wuu soo dhisnaa 4.5 baana lagu qaybinaya wax dhibaataana kama jirin waxaana lagu dhaqeeyay xeerar ay sameeyeen niman siimaanaa oo 50 sano ka hor yimid waddankaana uu xaaji yuusuf ka mid yahay runtii waxa weeyaan waxaa la yidhi 3 jaaliyadood min 21 jaaliyadii hadday soo bateen marka waxaa la yidhi 4.5 bay kusoo socotay aniga ogaantay masaajidka marka meesha uu ka halaabay ee 4.5 kii la kala tuuran caawa idiin sheegay ummadda soomaaliyeed meel walbood joogtaan dhismahan cusub marka loo soo guurayo ee la degayo waxay ahayd 20kii bishii December 2012 wuu ii soo qori karaa qofka macnihii yiraahdaa waa been maalin waxaa lagu beegay ay maalmihii fasaxa oo Christmaska ama maaragtay happy Christmaska waxaan ay dhahaan halkaana looga yaqaan yuulka ayaa lagu soo beegay sababtana waxay ahayd fasaxa ugu horeeyay oo la heli karo kaasay ahayd masaajidka markii loo soo guuray dadku way faraxsanaayeen laakiin khilaafku wuxuu ka soo bilaabmay halkan hadda la degan yahay in loo guuro iyo in loo guuro Roman oo dadka badankood ay ka yimaadeen Roman waa meel u dhaxaysa Stofner iyo waxay u dhaxaysaa iyo Gruurud bay u dhaxaysaa waa meel oo maaragtay 5 ku maro tareenka 5ka ama teebana 5ka underground number 5ka mara teebana number 5ka mara halkaas ayaa dad ay yiraahdeen waa loo guuri dad kalena waxay yiraahdeen maya halkana loo guuri booska waxaa lagu helay 7 milyan oo karoon oo lacagta ah xilliga 7 meelahaas ay ahayd maanta hadda kor buu u kacay ilaa 10 buu gaarayaa halka macnaheed dollar waa ilaa 10 karoon waaga 5 ilaa 6 ilaa 7 ilaa 8 meelahaas uu marmarayay lacag marka u dhiganta waxaa lagu iibsaday qiyaastii 500,000 oo dollar
ayaa booska lagu iibiyey. dhismaha waxaa la yidhi nimankan mashruuca oo hadda marka dambe shaatiga la baxaya oo waqafka la baxay ayaa mashruucu wuxuu ahaa aan idiin sheego. mashruuca waxaa ku jiray xasan cabdi mursal, nin la yihahda jaamac baa ku jiray oo hadda faraha iskaga qaaday. way badnaan yarkii cabdirasaaq baa ku jiray oo ofiska u fadhiyey hadda maaragtay iyaga laftooda dacweeyey oo waddanka waa laga masaafuriyey. ninkaas way dacweeyeen, waxay yidhahdeen sharcigu talyaani ku leeyahay, xataa talyaanigii laguma simina burcaa la geeyey ninkaas. waana ka xunnahay faysal goox iyo raggan ibraahim dheeri iyo kulan iyaa ka dambeeyey, waana la ogyahay. wiilka miskiinka oo meesha ka shaqaysanayay ayay u xaasideen 10 kun oo meesha ka qaadanayay. waana loogaa isaga laftiisa qabiil buu ku seexanayay oo rag baa naas nuujinayay. runtii ku noqon mayno. waa la dacweeyey ninkaas, booliiska habeen u yimid. ninkaa waana la qabtay, waana la masaafuriyey, deportation baa lagu sameeyey. waana ka xunahay runtii haddaan nahay bulshada ummadda Soomaaliyeed. waxaa dhacday markii la soo guuray 2013 bishii 6 anuu halkan baan ka tegey. waxaan aaday Canada. waxaan imaaday qiyaastii bishii 12aad baan imaaday bilowgeedii. waxaan imid nimankii aan ku ogaa oo 2012 samarka la doortay oo la rabay 2 sano ugu ekayd oo 2000 iyo waxay ku dhammaan lahaayeen 14 bisha 6 7. nimankii waxaan imid la afgambiyey. sababtuna waxay ahayd maadaama markas cusub loo soo wareegay, waqafku waxay go'aan ku gaareen guddiga sharciga oo dowladda ka diiwaan gashan oo istiiraha hadda la yiraahdo, oo hadda si ku meel gaar ay ugu qoriyeen cabdiraxmaan kulan, axmed qare iyo cabdixakiin ismaaciil. anagu nimanka kale ma aqoonsanin. hadda nin waxaan arkay ibraahim dheeri leedo oo gudoomiyaha markaskan ay oo kuwo intay u tageen ay warsanayaan oo leeyahay gudoomiyihii waaka. war gudoomiye ma tiid ibraahim dheerow ilaa macnihii brunusun labadiinii kooxood laydin kala saaro oo aad hesho ratification waxa la yiraahdo aqbalaad ilaa aad hesho walaal ma tiid gudoomiye. haddaad gudoomiye tahay NRK-ga cabdiraxmaan ismaaciil iyo VOA-da ninka le axmed qari iyo ayay warsanaysa. waa lagu warsan lahaa qolyihii Norwegiga maada siinin marka waxba ma tihid. ninka leeyahay baskaaga iska wado. dukaanka aad maaragtay habartan waalan aad dhex fariisayna haddii aday ku taalaa adig iyo habarta waalan meeshaan isula duulaysaan isula duula aad masaajidka lacagta ka dhacdeen. labadiinaba laba khaa'in baa tihiin oo laba madhalays ah. runtaan idiin sheegaya anagu caawa. waxaa dhacday marka ummadda Soomaaliyeed meel walbood joogtaan. waxaa dhacday nimankii mashruuca la baxay shaatigay bedesheen. nimankii nacfi guddiga u dambeeya sharciga oo 4.5 oo laga wada muuqday ayay madaxa isu geliyeen. waxay isticmaaleen 3 nin. 3 nin waxay kala yihiin axmed abuukar cumar cadaani, ninka la yiraahdo cabdiraxmaan shiine. afar baan ku leeyahay. cabdiraxmaan shiine, bila cali, axmed abuukar cumar cadaani iyo weerow. 4 nin bay isticmaaleen. waxaa la sameeyey cabdiraxmaan diiriye nin la yiraahdo oo dhaqaalaha ku qornaa oo maqnaa ayay waxay sameeyeen khasnadii dhaqaalahay jabsadeen. lacagtii bay boobeen. lacagtii markay boobeen ay furteen maadaama wiilkaas uu maqnaa. nacfina waa la riday. waxaa la yidhi guddigii maadaamuu iskhilaafay oo maaragtay madaxa isla galeen annagaa idin ridnay. waxay sameeyeen marka guddi waxay sameeyeen gacan ku rimis ah oo 7 qof ka kooban. 7 qof marka waxay kala yihiin ninka la yiraahdo Cusmaan Bahdoon, Axmed Sheekh Khaliif Siigaale, Cabdikariim Mahad, علي عبدي. haddii alle kuu sama ogol yahay ninka la yiraahdo faysal gooxsade iyo qofka kale waxa waaye 7 nin ayaa marka waxaa la yiri si ku meel gaar u haya.
nimankaas waxay hayeen 2013 iyo 14 ilaa October laga soo gaaro ilaa laga soo gaaro bisha 7 July meelahaas waxay marka diyaariyeen nimanka weeye nimanka marka khadkii rasmiga ahaa oo macnaheedu ka leexday oo sameeyay isbahaysi ka kooban hawiye iyo iidoor labadaas weeye walaalayaal waa in runta la isu sheegaa waxa la boogta marka dhakhtarka loo geeyo fuxsi buu sameeyaa fuxsiga waxa waaye diagnosis baa leeyahay haddaad dhakhtar tahay adigoo baaritaan samaynin qofka dawo uma qori kartid macnaheedu subscription ama description ma qori kartid haddaadan aqoonteedii lahayn waa inaad baaritaan samaysaa hadday indhihi tahay dhegihii hadday tahay hadday keliyihii tahay cudurrada kala duwan oo dhan marka qof walba general macnihii marka uu barta ninku general doctor marka uu yahay oo cudurrada dhan ee guud uu ku takhasusay wuxuu samaynayaa diagnosis haddaynaan marka cudurkan qabiilka ee innaga ina haysta haddaynaan marka aynaan si fiican uga hadlin oo boogta si fiican ayna farta u gelinin oo ayna u dhayin ma dhaysan marka waa in runta loo sheegaa muslimow run sheeg muslimow run uga qaado waxaa dhacday marka nimankaasa waxay sameeyeen 4.5 ki waxay yiraahdeen waan iska daynaynaa sababtay tahay dad ayay rabeen meesha inay ka tuuraan waxaa wada hadlay odayaasha beesha iidoor iyo beesha hawiye waxaa go'aan lagu gaaray daaroodka sidiisaba bataatanba dumarka iyo raggaba in laga tuuro masaajidka go'aankaasay qaateen waxaa marka ka mid ahaa ragga go'aankaa qaateen caawa aan idiin sheegayo muuse dheere xaaji yuusuf axmed abgaalow baylood ninka la yiraahdo waxaa ku jiray axmed wacays ninka la yiraahdo koofiyadda qaata oo stationka fadhiista waxaa ku jiray ninka la yiraahdo waxaa ku jiray baasha muuse waxaa ku jiray ninka la yiraahdo cabdullaahi hoolmaliya ku jiray cali cabdinin leedaa ku jira oo SNM ahaa oo la wada yaqaano waxaa ku jiray ninka la yiraahdo axmed abuukar cumar cadaani waxaa ku jiray diiriye guure 10 nin ayaa shiray habeenimo waxaa kaloo la shiraayay oo 10 nin ku weheliyay mustafa xaaji ismaaciil haaruun oo qabiilka iidoorka backup oo mar walba oo la wada og yahay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan aan u sheegaynaa أنا عندنا وقال بقين لا نخاف لله لومة لائم وحاد عضي مركا ومضى الصومالية دي مركي قوانكا لقاتي وحويان إن دارود كاللغات تورو مساجد كالقرئية قردربا هدي أي سوارانا من بريس كودا لداديو oo la tuuro meelo kale la geeyo si hadhow haday dacwo ay samaystaan aan macnihii runtii la yiraahdo minbar bamatiinba wayna dhacday hadda 2018 shantii nin dacwoonaysay markay dacwoonaysay booliiska loo tagay waxa la nimankan membership ma haba ama medlan ma haba lagu yiri waxay kala ahaayeen 5 nin oo xataa nin la yiraahdo bila cali oo groupkan hadda labada group hadba bundle buu sameeyaa bundle xagga iyo xagga marna xaggu aada marna xagga inkastoo hadda la igu yiri qoladii ma jeerteen buu ku soo laabtay marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa wax daarood la yiraahdo ma jiraane niman ma jeerteena ayaa masaajidka waxay ku haystaan niman hawiye ah iyo niman iidoor ah oo isbahaysi ah أنا هذا شخصيا أوادين بانهاي ريا عبد الله نهاي أنا dhexdhexaad baan ka hay meeshaas anu wariye madax banaan baan ahay anu waan soo gudbiyaa bas wixii information aan hayo laakiin ogaadeenku banaanka ka yihiin mareexaanku banaanka ka yihiin warsangeligu banaanku ka yahay dhulbaantu banaanka ka yihiin leelkaasuu banaanka ka yihiin awtabluhu banaanka ka yihiin
yuusuf daaroodku bannaankii ka yihiin dhammaan daarood oo dhan marka laga reeba majeerteenkuna waa 5 nin oo cumar maxamuuda 5 ninna waan idiin sheegayaa waxa weeyaan cismaan toorrey maxamuud cabdi jaamac maxamuud hoobaal cabdi dheere iyo sanyar 5 nin weeye 5 nin ay ku haysata masaajidka jaaliyad jirto oo hadda Puntland oo aanu ogahayna ma jireen 2 jaaliyadood bay u kala fadhiyaan magaaladan 2 jaaliyadood weeye Jubbaland 6 jaaliyadood bay maraysaa galmudugna waa 9 jaaliyadood marka waxaan hadda jaaliyada ma aha muqaaxiyo ay rag furteen bay noqotay oo maaragtay kafeeyada marka la isugu imanayo si nin hal nin kafee 10 nin ay uga cabtaan leeyahay gudoomiye oo hadda sida liibaan oo kale liibaan bay hadda ogaadeen ku nin liibaan leeyahay ka cabi jiray waa dhaweydo oo gobolada Jubbooyin ka soo jeeda oo markii dambana wuxuu yiri dhaafiyo ku yiri marka hadda jaaliyada Puntland leedin sheegayo yaa waaye mar kaba cadaa lagu tilmaamay inuu hadda uu iskaga tago garow joogaa ana hadda ku soo arkay bishii shanaad mar aan tagay garowe marka waxaan hadda la leeyahay hebel baa jaaliyad baa hebel iyo hal jaaliyad oo magaalada ka dhisan oo la isku waafaqsan yahay walaalayaal ma jirto anaga joogno wadankan inta ku nool 20 sano ku dhawaad marka haddaan mawduuc u soo noqdo 12 nin waxay go'aan ku gaareen daaroodka in laga tuuro guud ahaanba go'aankii marka uu soo socday wuxuu gaaray in isbahaysi 9 iyo 8 ka kooban iyo 3 nin oo meelaha ka keensadeen oo markii dambe is casilay inay yiraahdaan kuwana guddi ah guddigii ugu horeeyay oo khaladka lagu sameeyayna wuxuu oo laga bayriyay nimankan hadda wali jooga may waxay ayaan Cabdullaahi Hoolmali iyo Barobio waana la isku dhaganaa labadii sano nimanka waxay ugu dhamaatay isku dhaganaansho waa laga soo tagay isla hawiyi baa isbahaysi sameeyay waa la iska soo qorqortay wixii dambaada qoraal wax doorasho meesha ka dhacaysay ma jirtaan ilaahay wax doorasho ka dhacday ma jirto waa la iska soo qortay kuwan hadda fadhiyo oo la leeyahay idaacadaha ka hadleen oo la leeyahay Cabdi Xakiin Ismaaciil wakiilka Faysal Cali Waraabe ee magaalada Oslo iyo ninka leeyahay Cabdiraxmaan Kulan iyo ninka leeyahay Axmed Qare wali way iska joogaan wali way iska joogaan nimankaasu waxay ku leeyihiin wax guddi nagala wareega ayaan laanahay waana runtooda Bruno Sumba laga soo celiyay Ibrahim Dheeri iyo kuwan kale labadan group waa la soo celiyay qishkana yaasi ma taqaanaan nimankan hadda Axmed Qare habeenkii dhaweeyay la warsanay waan dhageysanayay wuxuu yiri waxa la isticmaalay buu yiri loogada maada iskale loogada hadda halkaas ay ku taalaa meel walba laga koobiyeysanayay waxa weeyaan Axmed Qarow baadil baad ku timid baadil baadna ku tagaysaa waxaadna tahay nin Mooriyaana oo markii horena aydiid baroonka u saaraa oo khaainul wadan ah markii dambena biyaha dadka jareerta ka gedi jirtay meesha leeyado webiga Shabeelle Janaali iyo meesha leeyado afgooyiye inta u dhaxaysa ayaad qowsaar u ahayd maaragtay webiga u gada ninka leeyado Yuusuf Indhacade waana ka xunaay runtii sababta daaroodka looga tuurayayna wax kale ma ahayn nin Allah u naxariisto aan halkan aad uga tacsiinayo runtii wadankan aan ka maqnaa xilligu geeriyooday Saacid Allah u naxariisto kullay waxa ay marxaati firi doona nin aan xajka isku wada raacnay oo la yiraahdo Zakariya Cabdi ninkan dhalinyarta aan israacnay groupkii wuxuu ka mid ahaa runtii Yaasiin Baynax Barre uu ka soo qaaday Stockholm annagana halkan Cabdullaahi Sheekh ayaa naga diray xafadullah waraahu waxaan tagnay isugu tagnay meeshii leeyado Makka isugu tagnay Jidda iyo Makka iyo dhulkii barakaysnaa isku meel baan deganayn runtii ninka leeyado nin dhalinyaro oo shaqaysta oo aan aad u amaanayo weeye Zakariya Cabdi walaalkaas ayaa ii rumaynaya aniga iyo isaga maalin waxaan isu raacnay mina meesha maanta uu naga hooseeyaa aniga iyo Zakariya Cabdiba ninka la yiraahdo Saacid Maxamed Warsame Allah u naxariistee oo ay ku been abuurteen runtii oo halkan uga tacsiyanayo waxa la tuugu wuxuu marxaati gashadaa baa nin dhintay
ninkaas ay eedaynayaan baan idiin sheegayaa zakariya cabdi maanta waa nool yahay isagaa ii markhaati furi doona markuu cajaladayda tan daawado zakariya cabdi aniga isagaa israacnay amin galab ah waxaan u tagnay walaalkeen saacid wuuna na soo dhoweeyey waxaan ugu tagnay cali maxamed saalax iyo gruubkii 2010 bay ahayd November allah naga aqbala xajka iyo cumradaada dhammaanteen isagana raxma waasic baan ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala ninkaas way ku been abuurteen waxay kaloo ku been abuurteen sheekh cabdinuur xafadahullah waracaahu oo geeriyooday oo Toronheim ku geeriyooday oo masaajidkana muxaadaraadna ka jeedinayay mu'tamaraadna ka qayb galayay oo xataa been bay sheegeen guddigan hadda waxay yiraahdeen waxaan ka qayb galaynaa baskan kiraynaynaa waxaan ka qayb galaynaa kharashkiisa wayna oga baxeen runtii aniga arinta la soo gaarsiiyay arinta ah ceeb bayna idinku tahay maanta inaad markhaati gashataan kuwa geeriyooday aad baan oga xunahay zakariya cabdi marka wuxuu iga markhaati furay haddii ilaahay yiraahdo oo cajaladan dhagaysto ninkaas annaga gruubkeennii way naga fiicnaayeen niman waxay ahaayeen masaajidkana xaramkana 500 tallaabo u degan annagu halka aan casiisiyad deganayn oo 10 kilomitir u jirta xaramka ilaahay runtii aniga zakariye galab baan u tagnay uuna soo dhoweeyay waan la yaabnay aniga zakariye nimankaanu furaashiyay ku jiifeen cuntaa looga keenayay maka VIP ba ahaan anagu hadda maxaan ahayn marka bustayaasheeni iyo habeenkan soo guureynay oo 8 bisha waxa la yawmu tarwiya maalinka 8aad maalinka 9aadna waxa yawmu arafa saddexda maalmood oo dhulkaas barakaysan lagu soo wareegayo jamaraadka iyo maaragtay la tagayo dhulka barakaysan oo maqaamaadka la geeyo mashcar al-haramka iyo la tagayo meesha la yado عرفة iyo la tagayo oo la wareegayo anagu waxaan ay waan wadanay ragaas waa loo waday waxoodii bustayaal baa loo waday waxa loo waday furaashiya loo waday cuntadoodii baa lagu waday maka looga soo sameeyay anagu halka aan shawaaric mina aan ku wareegaynay oo maaragtay booliska Sacuudiga hadba intay damiyaan ay yiraahdaan meesha tan nabadgelyadu ma fiicno oo dab ayaa lagu waxa lagu daminay dabdamis baa imanayay anagu halkaas aan cuntada aan ka soo gadanaynay bustayaasheeni dhabarkan ku wadanay iyo waxaan huwan lahayn iyo waxaan ku seexan lahayn cuntadeeni waxa li waa jeebkiina marka day inuu ninkaasu uu VIP ahaa baan idin sheegay markaasay waxay yiraahdeen been abuurkay sameeyeen 10 sano ku shaqaysanayo sanad walbana wuxuu keenayay 20,000 nimankii ka dambeeyay ee aan keenayna 400,000 ayay keeneen حتى waxay u diideen Allah u naxariistay uu noolaa inuu isdifaacay u diiday mikrofoonka laga damiyay meesha waxa ka jiraan idin sheegayaan Mustafa Xaaji Ismaaciil iyo marka ninka leeyada Cali Maxamed Saalax haday culimo yihiin waa horay dadkan ay kala dhaxgeli waayeen culimo ma ah walaalayaal waa niman calooshadu shaqaystayaal oo caada qaatayaal oo labadooduba ay yihiin fataaniin haddana leenahay afatanun anta ya muaad ku rasuulku yiri ayaatihiina waxaan leeyahay tawfiiq iskaga leexda fataaniin baatihiin labadiina iyo 7 nin ay idinku wehelisa meesha la yiraahdo waqafka waxaan leenahay nimankaas burburiyay waxaan ku hanjabaynaa wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi way ka baxayaan waana laga saarayaa wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi waa laga saarayaa waqafka wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi waa laga saarayaa waqafka وانا نمان ظالمين او مجرمين waxaa dhacday marka umada Soomaaliyeed meel walba joogtaan waxaa dhacday way soo socotay marka kilibka yarka waxaan ugu dhaxdaray Zakariya rabaa inuu ii marxaati furo yawm al-qiyaama hadii la noolaado sababtay tahay been bay ku abuurteen hadduu ninka walaalkeena Allahu naxariistee uu khalad ku jiray sanad walba waxa raaci jiray Cali Maxamed Saalax waxa raaci jiray Mustafa Xaaji Ismaaciil muadinka raaci jiray ninka leeyado
mawlid baa raaci jiray waxa marka la isu hayo oo qabiilkan hadda laleeyahay masaajidka laga tuuray ninka dartii dagaal macnihi ay axmed nin la yiraahdo axmed cabdi nin la yiraahdo oo maktabada ay wada fadhiyeen dagaalku halkaas ka soo bilaabmay saacid dartii baana loo burburiyay haykalkii dhanaa ee ummadda Soomaaliyeed ay isugu timid ninkaana waxaan leenahay Allahu naxariisto waxaan ku soconayaa marka mawduucaygii iyo xalku waxa uu yahay caawa ugu dambeyn baan idin soo sheegi doonaa marka waxay dhashay saddex guddi baa hadda maanta la marayaa waxa weeye Cabdullaahi Holmaliya waa la isku dhaganaa Cabdiraxmaan Kulan iyo qoladan hadda sida ku meel gaarka sanad bay ku darsadeen runtii waayo waxay ku leeyeen wax naga qaadan laanay VOAD iyo meel walba ay ka sheegeen runtii marka waxaan leenahay horta qoladan groupkan dambe Ibrahim Dheeriye war shame on you war xishooda waxaan arkayay on halkaan fariin uga dirayaa nimanka qalin iyo mikrofon aan u bixiyay ee wariyaasha iska dhigaya ee wareegaya ee shilimaadka ka qaata war waxaan leenahay fidnada ummadda Soomaaliyeed aad ku dhex wadaan iska daaya shilin haddaad rabtaan meelo kale aad ka helaysaan waxa weeyaan waxaan halkan ummadda Soomaaliyeed uga sheegayaa nimanka qalin iyo mikrofon la baxay oo xataa mihnadeedii aan lahayn waxa kan waa ceeb war waxa kan iska daaya aad maaragtay ummadda Soomaaliyeed iskaga horkeenaysaan waxaan meeshan masaajid haduu yahay وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا محاول دور شاء الله كينا يابا مساجد الصومالية وحان أركي هذا مركان قروا يبوصاصي إيو حمر نوين تجي هذا كور مساجد والبا وحويان قفك آدامي بسه أيات شوغا إيو نين إمامك حتى صلاة مركا اللي تكنا يوي مادا مركو تكنا وي بحان هذه كتاب لو آخر سنة يدد يربا فرديا ماشان مركا waxa ugu horeeya ee la isugu imaanayo ummadda Soomaaliyeed ay isugu imaanaysay la isku dilaayay ee hadda quba waa la isku haystaa masaajidka hays rag baa halkan u jijiifay aan naqaan halkan ka tagay oo xasan yare kamid yahay xasan yare waxaad halkan uga tagaysay inaad trusteeshipka meeshii la yiraahdo quba war fataan baa tahay dadka ummadda Soomaaliyeed meel ka fadhiiso khaa'inul wadan ah oo tuug ah ayaa tahay adeer kaba kuleegu xidhaan kuleenay kabaha kulama ekee kaba kuleegu xidhaan kuleenay ninkii la yiraahdo xasan yarow beeshaadaada waxba ka ahayn adeer waxaan ku leenahay fataan baa tahay ee ummadda Soomaaliyeed meel ka fadhiiso shan nin oo kamid yahay baa masaajidkii qubana afduubtay oo waxa masaajid walba loo dhisayo 10 nin inay qaadato ama 5 nin ay qaadato miya war ummadda Soomaaliyeed meel laga fadhiisto fataanin baa tihiine waa kuwii hadda laga hadlaayay oo wiigi hadda u dambeeyay lalaha waa SNM SSDF iyo USC waa run جامع runtii weeye waxaan leenahay masaajidkaas wuxuu u xireeyay saddexda qabiil ma jeerteen iidoor iyo hawiye oo iidoor iyo hawiye ay isbahays yihiin marka arintan kulay maxkamad bay taala anuna go'aan kama gaari karo Mustafana kama gaari karo